iyadoo lagu guda jiro xuska sanad guuradii 34 ee ka soo waraagtay aasaaska ciidanka booliska deegaanka Soomaalida waxa halkan oo ku suganahay oo ah garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga maanta si meeqaam sare ah lagu xusay sanad guuradii ka soo wareegtay maalinkii dhidba loo taagay ciidanka booliska deegaanka Soomaalida mas'uuliyiin heer deegaan ugu horeeyo hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale komishineerka guud ee komishanka booliska deegaanka Soomaalida Sarreeye Guud Cabdi Cali Siyaad heerar kala duwan ee saraakiisha hogaaminta maamulka magaalada Jigjiga ugu horeeyo duqa ku-xigeenka magaalada Jigjiga mudane Khadar Budul golaha nabadda qaybaha kala duwan ee shacabka ayaa halkan kala soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska ayaana halkan ku soo bandhigay gaardaka ciyaar kala duwan ugu horeeyna komishineerka guud ee komishanka booliska deegaanka Soomaalida Sarreeye Guud Cabdi Cali Siyaad oo ka hadlay goobtani ayaa ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa ay soo mareen aasaaska ciidanka booliska dalka iyo kan deegaankuba waxa la aasaasay booliska dalka 1901 xilligii boqortooyadii Milik waxa mar labaad si casri ah abaabulay ama loo agaasimay 1934 boqortooyadii Hayle Salaase mar saddexaad kacaankii dhergida ciidanka booliska wuu burburiyay wuxuuna ka soo reebay wax yar oo lagu magacaabi jiray booliskii kacaanka 1983 marka ay xukunka la wareegeen ururkii BRDF waxaa dib loo habeeyay booliska dalka waxaa si rasmi ah deegaankeenna loogu sameeyay boolis sida uu dhigayo dastuurka dalka deegaanka Soomaalida markii ugu horeysay waxaa la aasaasay 1984 difcaddii ugu horeysay waxaa lagu tababaray magaalada Dirdhaba difcaddii labaadna sidoo kale waxaa lagu tababaray magaalada Dirdhaba 1986 difcaddii saddexaad oo dhannayd 370 askari 1988 markii ay soo badatay baahida booliska loo qabo ayaa markii ugu horeysay difcaddii afraad lagu tababaray deegaankeenna dugsiga tababarka qamaadaha waxa lagu daray gabdho Soomaaliyeed si loo xoojiyo xuquuqda haweenka ee dhinaca baarista sida oo kale waxa la sameeyay kooxaha booliska ee fanka ciyaaraha iyo warbaahinta 2000 ciidamada arrimaha batanaaga ayaa iyagana loo baahday oo la sameeyay waxayna ku tababarteen ciidanka militariga xerada uu tababarka uu ku leeyahay Warso dhanka kale taariikhda ciidanka xoogga gaarka ah waxaa la aasaasay 1999 waxaa ilaa iyo 2015 la tababarayay difcado kala duwan oo ah ciidanka booliska gaarka ah waxay la dagaalameen ururadii jamhadaha ee ka dhaqdhaqaaqi jiray deegaankeenna 2010 markuu dhacay isbeddelka siyaasadeed ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaa xoogga la saaray dib u dhiska booliska deegaanka waxaa dib u habeyn iyo tababar la siiyay ciidamadii hore waxaa shaqada booliska lagu soo celiyay 2500 oo askari iyo saraakiil waxaa la kordhiyay tirada iyo tayada ciidanka waxaa la kordhiyay mushaaraadka ilaa iyo 3 jeer waxaa la bixiyay darajooyin 17 janan ay ugu horeeyaan korneylo shaalaqayaal shaamballo xidig leh ilaa iyo alif leh maanta booliska deegaanka wuxuu marayaa heer sare oo u heelan ilaalinta shacabka iyo sharciga dhankiisana hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale ayaa tilmaamay in xasiloonida iyo nabadgelyada ciidanka booliska deegaanka Soomaalidu ay keeneen muddooyinkii u dambeeyay deegaanka Soomaalida ka dhigtay mid ka ugu nabdoon guud ahaan deegaanada dalka maanta waa maalin gaar ah maalin aan xusayno sanad guuradii 34 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska deegaanka Soomaalida ciidanku waxay naf iyo waqti geliyeen inay difaacaan shacabka deegaanka waxayna yihiin difaaca had iyo jeer ilaaliyo sharafta iyo qiyamka bulshada waxaan idinku bogaadinayaa adkaysigiinna
iyadoo mar walba aad heegan u tihiin inaad ilaalisaan danta guud shacabka iyo dawladduba waxay idinku hanweyn yihiin ayagoo aaminsan inaad mar walba taagan tihiin ama aad u taagnaan doontaan difaaca dalka iyo ilaalinta sarraynta sharciga waxaan idiin rajaynayaa sanad kale oo guul ah horumar ilaahayna waxaan idinka baryayaa inuu idin barakeeyo ilaaliyo xifdiyo ciidankeen mudanayaal iyo marwoy maalinta aan xusayno guulaha aan gaadhnay ma ahan kuwa lagu soo koobi karo hadal kooban oo halka laga jeediyo guulaha sida gaarka ah loo xusi karo waxaa ka mid in maanta aan haysanno in la sugay sarrayntii sharciga kala dambaynta dawladnimadaas iyo inuu hirgalo deegaankeenna inuu yahay deegaanka ugu amnisan dalka deegaankeennu waa deegaanka ugu amnisan dalka wax si fudud ku yimid maaha waxaan leeyahay sharaftaas aad kasbateen ilaahay idinku asturo sugidda amniga deegaanka waxaa la ogsoon yahay inuu boolisku habeen iyo maalin walba u taagan yahay isagoo aanan ka waabanaynin soo jeed habeen iyo maalin ah dhaxanta roobka qorraxda mar walba iyagoo duruufaha ku shaqaynaya ay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan kala dambaynta iyo sugidda amniga deegaanka dhinaca ka hortagga dembiyada booliska deegaanka isbeddelkii kadib waxaa loo tababaray inay awood buuxda u yeeshaan inay ka hortagaan dembiyada abaabulan iyagoo kaashanaya shacabkooda booliska deegaanku waxay wada shaqayn iyo turriin badan u muujiyeen shacabka deegaanka innagoo og habkii loo adeegsan jiray ciidanka deegaanka